wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Qatar kala wareegay qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu horumariyo xarunta maamulka hawada ee Soomaaliya. Marayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo munaasabadda qalabka lagu wareejinayay ka hadlay ayaa sharaxay sida qalabkan ay hay'adda duulista hawada ee dowladda Qatar ay ugu talagashay hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya oo muhiim u yahay shaqada hay'adda iyo sidoo kale maamulidda hawada Soomaaliya. Sidoo kale Mariyuhu waxa uu sheegay in qalabkani uu ku soo aaday waqti loo baahnaa. maantay waxaan halkan u joognaa in aan kala wareegno qalab ay noogu deeqeen civil aviationka Soomaaliya ay ugu deeqday civil aviationka Qatar oo ay la soo marsiiyay ambassadorka Qatar u fadhiya Soomaaliya kadib markii ay nagu sameeyeen baaritaan iyo heerka aan marayno ayay waxay go'aansadeen in wixii naga dhinaa ay noogu deeqaan waxaa dawladda ugu horeysay bilowday waxay noqotay dawladda Qatar maanta safiirka halkan nala fadhiyo marka qalab fara badan ayayna soo gaarsiiyeen qalabkaasi wuxuu ku soo aaday xilli aad muhiim u ah civil aviationka Soomaaliya. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa uga mahadceliyay dowladda Qatar sida ay u garab taagan yihiin Soomaaliya mar walbana ay garab u siiyaan. dhanka kale wasiir Omar ayaa sheegay in dawladdu ay ku hawlan tahay horumarinta hay'adda duulista ee gobolada dalka oo dhan. qalabka dawladda Qatar ayna siisayna waan ugu mahadcelinaynaa oo waa runtii horumarkeena ay sii muujinaysaa. waxaa kaloo xusid mudan inaan hadda ka shaqeynayno sidii aan u horumarin lahayn gobolada sidii ayagana loo qalabayn lahaa loo horumarin lahaa mashruucaasna hadda ayuu bilowday. waxaan mahad gooniya u celinayaa Axmed Macalin Sheekh Jaamac waad arkaysiin hadda xaaladeena sida ay marayso insha Allah taala waxaan rajaynaynaa sektarada kale ee kala duwan ee dawladana inay sidaas si kasii wanaagsan ay noqonayaan. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa safiirkeena dawladda walaalahana ee Qatar oo markasta garabkeena taagan runtii wax kastoo aan oga baahanana nagu garab taagan ayaan runtii aad ugu mahad celinaynaa. Abdul Bilal TV